diblomaasiyadeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya ka tirsanaya sheegay in tallaabadani ay u badan tahay inay sii xoojiso xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Soomaaliya isku dhinaca iyo Itoobiya oo dhinaca kale ah. Masar iyo Soomaaliya ayaa sanadkan aad isugu soo dhawaaday kadib markii Itoobiya ay safgarad la gashay Somaliland kaasoo qoraya in Somaliland dhul badeed ka kirayso Itoobiya iyadoo Somaliland ay sheegtay in Itoobiya ay u aqoonsan doonto dal madax bannaan. Xukuumadda Muqdisho ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qarannimadeeda waxaana sheegtay inay kaga hortagayso wax walba oo laga maarmaana. Masar iyo Itoobiya oo sanado badan isku khilaafsan biyo xidheenka weyn ee Addis Ababa ay ka dhisayso marinka webiga Niil ayaa keenay in Masar ay cambaarayso safgaradkii Somaliland iyo Itoobiya. Waxay horaantii bishan heshiis dhanka ammaanka la gashay dowladda Soomaaliya waxayna soo jeedisay inay ciidamo u dirto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hore ugu hanjabtay inay dalka ka saari doonto ciidamada Itoobiya ee gaadhaya 10,000 ee askari kuwaas oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta Afrika iyo heshiis laba geesooda oo lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab xitaa haddii safgaradka Somaliland la baabi'in waayo. Laba diyaaradood oo ka tirsan ciidamada Masar ayaa subaxnimadii Talaadada gaadhay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyagoo wata hub iyo rasaas sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen ilo diblomaasiyadeed iyo sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo diiday in magacyadooda la shaaciyo. Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada oo ay xaqiijisay wakaaladda wararka Reuters ayaa muujinayay diyaaradaha oo taagan laamiga garoonka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Masar iyo afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaan si degdeg ah uga soo jawaabin codsiyo arrintan la xiriiray. dalabka Masar ee ah inay ciidamo ku biiriso howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee sanadka soo socda ka bilaabanaya Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay warmurtiyeed ka soo baxay Midowga Afrika horaantii bishan. Qaahira ayaan iyadu si cad uga hadlin arrintan. Turkiga ayaa tan iyo bishii Julaay martigeliyay laba wareeg oo wada hadalla oo aan toos ahayn oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasi oo ku saabsanaa in safgaradka Somaliland iyo Itoobiya meesha laga saaro hase yeeshee aan weli la dhammaystirin. wareeg saddexaad ayaa la filayaa bisha soo socota. Itoobiya oo aan bad lahayn ayaa sheegtay inay u baahan tahay inay badda galaangal u hesho halka Soomaaliyana ay diiday tallaabadaasi Itoobiya. Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa si lamida bulshooyinka kale ee magaaladaasi ka cabanaya qiimo koror ku yimid kirada guryaha. dadka qaar ayaa sicir bararka kirada guryaha u sababeynaya dad badan oo magaaladaasi soo degay dhowrkii sannadood ee u dambeeyay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayaa wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji. Toronto waxay weligeedba ka mid ahayd magaalooyinka Kanada ugu qaalisan kirada guryaha, laakiin sanadahan dambe xaaladda ayaa ka sii dartay. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay qabaan in sababo badan oo isbiirsaday ay keeneen in dadka deegaanka ay ku adkaato inay degaan guryo habboon oo ay ka bixi karaan kirada. midda ugu weyn waxa waaye dad aad u fara badan oo dalkan Canada soo galay siyaabo kala duwan ku soo galay gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario. sababta labaad waxa waaye guryihii sidii loo dhisi jiray hore loogu dhisi jiray weli looma dhisino waa yara dhismihii guryaha ayaa aad u yaraaday. sababta saddexaadna waxa waaye waxaan ku tilmaami karnaa in mataqaanaa dowladda gobolkan Ontario aan degannahay aysan xakamaynin kirada guryaha inaysan xakamaynin. dowladda gobolka Ontario waxay ujeedka xakameyn la'aanta kirada guryaha xilli hore ku sheegtay in maalgashadayaasha lagu dhiirigeliyo in ay dhisaan guryo cusub si loo daboolo baahida dhanka guryaha. laakiin duqa magaalada Toronto xilli ay la hadlaysay dad joojiyay bixinta kirada sababo la xiriira kirada oo lagu kordhiyay ayaa sheegtay in arrintan xakameynta kirada ay tahay mid hoos tagta dowladda gobolka balse ay dadaal ku bixinayso wixii awoodeeda ah. It is true that rent control is under the Tenant Landlord Act. It is a provincial matter. waa dhab ayay tiri in sharciga xakameynta kirada guryaha uu hoos tago gobolka. guryaha la dhisay wixii ka dambeeyay 2018 milkiilaha waxa uu doono ayuu kireyn karaa. waa musiibo sababaysa ayay tiri in dad badan guryaha laga saaro maadaama aysan awoodin kirada. dadaalada dadka u doodaya wax ka qabashada arrinkan ayay ku sheegtay inay culays ku saari karto dowladda gobolka inay la timaado qorshe cusub oo lagu xakameynayo kirada. cabashada korarka qiimaha kirada guryaha waa mid soo jiitamisay muddooyinkan dambe. dadka qaar ayaa kira ahaan u bixiya in ka badan
kala bar lacagta soo gasha bil walba. Laakiin dad badan waxay rumaysan yihiin in kiradu aanay ka badnaan 30% dakhliga qofka soo gala bishii. Dadka muddada deganaa magaaladan waxay sheegayaan inaysan weligood arkin qiimo koror midkan la mida. xuseen kirada guryaha aad bay qaali u noqdeen, waa sicir aan laga sheekeyn karin. ilaa muddona hadda waa nagu heystaa dhibaatadan sicirka ah. anigoo degan wadankan dhowr iyo 30 sano ma arkin sicirkan sida uu yahay maanta uu jiro. anigu waxaan doonayaa hadda 3 qol inaan dego ilaa dhowr 5 sano 4 sano waxaan raadinayaa sicir iqanciyo, mana helin ilaa hadda. marka waa la yaabanahay sicirkan saan u kacay. Inkastoo saamayntu ay tahay mid guud, haddana dadka qaar ayaa qaba in Soomaalidu ay si gaar ah u saameysay arrinkan. Soomaalida arrintan guryaha kirada qaali garoobay waxay u saameysay dadkoo dhan ay saameysay oo Canada degan, gaar ahaan Soomaalida. waayo Soomaalida sida aan ognahay qoysas ballaaran waaye oo midka ugu yar 4 carruur ay leeyihiin. marka 1 qol iyo 2 qol iyo 3 qol iyo xataa kuma filna. marka arrintaas Soomaalida aad iyo aad u saameysay. Lama oga xilliga